الله دلكان يا إسكال دلكان يا أمك عوانك يا إسكال أرض اللي يا إبارة أرض اللي يا إبارة من دكيس ضيع عيتك على kulanti wanaagsan kula soo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno fanaanka Soomaaliyeed ee Soomaalidu ay u taqaano boqorka shanta Soomaaliyeed ilka casaqays ee waraysiyadii aanu qaadi jirnay oo hore oo kale xoogaa uu ka duwan yahay su'aalo xasaasi ayaa ku jira dad fara badan oo idin ka mid ah inay weydiinayeen daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee waraysigan aanu la yeelanayno ilka casaqays fanaanka weyn ee boqorka shanta Soomaaliyeed ayaan idinku soo dhaweynayaa waa qaybtii labaad qaybtan waxaan jeclahay inaan kaga hadalno haddii ilaahay yiraahdo heesahaaga adiga boxina waa ciyaaraysaa murquuna geedkaasay ku leeyihiin aniga laftigaygu beri baa waxaan lahaan jiray six bags hadda xabad baa ii hartay shantii kale meel aadi ma aqaano gartay waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo dad badanna ayna weydiiyeen oo qoraal noo soo qoreen heesahaagu maxay u yihiin dagaal iyo feer iyo iskiifo iyo nacalla shaydaan ku yaal iyo tabliiq baan kuu dirayaa iyo maxaa la yidhaahdaa 40 cishaan ku dirayaa iyo holof baan kaa dhigayaa iyo dhabanadaan ku casaynayaa maxaad ku dooratay heesaha noocaas heesahan karbaashka runta fanaanka kaliya heesihiisu ee badanaa karbaash yihiin baan ahay kuwa hadda soo baxay waan arkay dhalinyarada cusub ayagana waxaan leeyahay shaqo fiican baad heesaan horey u socdaan idin leeyahay heesaha karbaashka dadka aniga aan la dagaala horta dad la arka maaha saasoo ay tahay waxa aan la dagaalaya ani inbaa og waana wax nolosheeda ku saabsan weye ayadoo sidaa ay tahay cabdixaafidow ayaa waxaa laga yaabaa dadka qaar in ayaga oo dad qaar kuwa ila joogo ama kuwa iga fogba waxay noqdaanba waa gart oo ay dhahaan heestan ana igu socotaa ama anaa li karbaashaya maalinka fanka soo galay 2005kii ayaan anigaas official heesteeda iyo videoga waxa dhan ay soo baxeen 2005 ilaa iyo hadda heesayga waa karbaash ilaa aan ka baxayana wax la istaajinaa ma way socdaan waxaan la dagaalaa wax la arka ma aha dad la arka ma wax in qusay as private ee weey waa number 1 number 2 na waxa weeye qofkii asaga u qaatay inaan ku wado mise ma arto xogaa oo dad isku yara beerana waxaan dhihi lahaa haddii aan ugu talagalo oon adiga aan rabo adiga kugu wada hees magacaadan sheegi lahaa holofaana kaa dhigi lahaa dal baana ku yeeli lahaa mana cabsado haddana ku sheegay qof Allah subhanahu wa ta'ala bisan ka cabsada laakiin waxaan la dagaalay aniga qurumaha la dagaalay waxaan aniga heesaygiyo anada way nolosha aniga aan ku soo koray iyo sida aniga u soo koray iyo waxyaalo kale ta iyo arrimahayga ka lamba hees walba oo aan qorano waxay ka hadlaysaa aniga saa u soo koray dadka bini'aadamka ee waa isku wada muuq waa dadku korba la wada siman yahay laakiin qofka noloshiisa iyo siduu ku soo koray iyo wuxuu soo maray iyo wuxuu qofka siyaastaan adii ma ogaan kartid maxaa yeelay gurug ma wada nooleedin marka qofka asiganto ani ii imaado i weydiiyo oo dhaho ilka caso arrinta heestan maxay tahay heestan xagee u socotay maxaad ka waday then waan u jawaabi karaa laakiin dee qof iska maartay qof walbana uma jawaabi karaa qofka rab inuu ogaadana then waan sheeko dheer weeye heesayga badanaan hees walba aan qoranayo nolosheeda ayay ku kooban tahay oo ku saabsan tahay waa wax laga hadli kara maaha marka ani nolosheeda iska movie waa gartay haddii su-aashaas aan ku weydiiyey su-aal barbar taalla aan ku weydiiyey qurumahan aad sheegaysid oo adiga kugu dhex jirood u jawaabaysid ma dad Soomaalida ka mid ah oo yar oo dhibaato kuula yimid ba mise waa dad kale iyo fartiin kale oo dilaysid wax inta ka sheegi kara ma waa gartay waa kugu ixtiraaminaa waa ka gudbaynaa wax kale oo jirto hees kale oo la yiraahdo jaalayaalow jaalayaashaanu ma siyaasiyiin ba ma shicib ba ma ganacsata ma bulshada rayidka ayay yihiin ujeedada waa maxay heestan heesta jaalayaalow waxaan ku soo dhisay oo ku taageersanaa Sheekh Shariif madaxweynaha Soomaaliya heesta ku ana qoray Soomaaliya Sheekh Shariif nin fiican weeye
ninkaas baan kusoo dhisay marka dadka qaar hadda ilka caso maxaa siyaasad ku falay maxaa siyaasad geeyay fanaan baa takuus baa tahay war wadankan aniga codkayga hadduu meel dheer gaarayo aniga waxaa walba hadlaa because waa inaan wadankayga iyo dadkayga dalkayga u hadlo weeye sheekh shariif asagoo waxba ahayn baan ani sheekh shariif aan taageeri jiray waan kusoo dhisay waan dadaalay ilaahay amarkiina de waa kii aan kulano minnesota ku kulano asoo madaxweyne meeshaana ka qaaday inaan aragti mooyey marka heesta waxay sheekh shariif aan kusoo dhisay waa gartay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan waraysigaan ula yeeranayno fanaankan waayahan dambe gilgilaya fanka soomaaliyeed waxgaag haddii aan kugu soo dhoweeyo adiga laftigaaga oo su-aalo gaara ku weydiiyo dad badan oo ku taageera aysan waxba ka ogeyn amase ay jeclaan lahaa inay ogaayeen horta ilka case ciyaal ma dhalay caruur ma leeyahay maanaan maqal maanaan arag dadka badankooda kuma yaqaanaan kuma arkaan heesahaaga iyo fankaaga la socdaan saaxiib bal on the spotlight haddaan ku saaro adiga ciyaal ma dhashay alxamdulilah 3 wiil baa ii joogo oo reer quraash ah 3 wiil oo midka ugu weyn la yiraahdo Sajid Maxamed Qays ka ku xiga Saahin Maxamed Qays ka ugu yar Saarim Maxamed Qays marka 3 wiil baa ii joogo alxamdulilah ilaahay mahad iska leh waxa weeye ilaahay subxaana watacaala ku barakeeyo waa wax lagu farxo nimankaa yaryar koodadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfacalaha ka dhigo waa hagaag waxaa jirta aysan dadku ogeyn oo kale ninkaagaan murquhu geedkaas ku leeyihiin oo xooga badan oo dhulka soomaalidu ay sida weyn u taqaano waxaa jira 3 xabadood inay kugu jiraan haatan aan kula hadlayo sidee xabadahaas kuugu dhaceen yaa kugu dhuftay laga yaabo mustaqbalkaas ka soo saartay actually saddexda waxaan sababta ugu dhacan baa waxay ahayd waxaan waagan yaraa waxaan jablo sigaar baan ahaa gaari aan la socdaal hoosingo iyo dhoble intuu dhexaysa naloo galay waana la xabadeeyey calaa kulli xafar qof baa dhimatay dhaawacana badnaa dadka dhaawacaan ku jiray 3 xab baa igu dhacday xabad baa igu hadhay 2 iga baxday actually marka in lama qali karo oo dil la qalo meel khatar baa ku jirtaa wallahi marka yaa runta 3 ugu midna xabad baa igu hadhay meel khatar meeshan hoos baa ku jirtaa marka alxamdulillah ma iskala waa sheeko dheer waayadana marka ayada kaliya warsac qaadanaysa laakiin alxamdulillah ma qajir baa hay markii 3 xabadood kugu dhaceen aad waa gartay yaraantaadii baad ka hadashay waxa kaloo jira oo aad dad fara badan ay la yaabi doonaan 95kii adigoo wiil yar oo gabar ah waxaa dhacday inta badan wiilashu markay yar yihiin aabahood baa wuxuu geeyaa dhakhtarka waa la gudaa ama reerka qof yimaadayo waa la gudaa adigu gacantaada inaad isku gudday baan maqlay arrintaas maxaa ka jira عبد حافظ ما وقت عرضه نيو دتك waxaan jeclaan jiray dadkan ka duunaada aan jeclaan jiray different inaan noqdo waxaan noqdo carruurta markay dhiilayay aan garan gartii wax isku dhiilayeen aniga waxyaalo waxaan jeclaan jiray waxaan gooni inaan ku dhiiro waxaan maskaxdayda aniga yaraanteeda la soo koray marka carruurta gudahay waxaan carruurta lama dhowr mar baan oo yar baan in la gudo waan ka cararay oo abana aad buu ii jeclaayo markaan ay korisaan aydan aad bay jeclaan markaan qayliyo wiilkii dhaafo marka waan diidi jiray yani calaashan waxaan dhihi jiray waay nin waxa qofku muxuu dheeriya calaashan waxyaalo khaldanaad aniga isku suubin karay oo aniga qayse because aniga khibradu malihi wax mi laakiin wax calaashan maskaxdayda ku jirtay in aniga waxay qofkan uu suubin karo calaashan qofkan hadduu wax suubiyey oo waxaan uu suubinayo aniga maskaxdayda carruurnimo ugu jirto calaashan qofkan carruurta gudaaya muxuu dheeriya ama calaashan anoo yar baan carari jiray markii aan xogaay siiro weynaaday oo diidan meel aabahayna markii hore inuu gudo mise qaraaco mise uu subiyo ayaa dhigi jirtay isku no wiilkay calash aad bay jecel Allah naxariis janada firdaws la ka waraabiye marka maalin ma kamid waxaan kaalay maxaa carruurta waa nig gudaa muxuu dheeriyay waan baxay sakiin la yiraahdo Tobas ina xasuusto mooyaan soo qaatay wixii ka dambeeyay story marka waxaan ka salaamay labadii wiil ila joogay maxamed aadan aad baan u salaamayaa oo soo kornay real dobley كابو أصلاً أنا أدنى صلاة مخصوصة كرني ريال دوبلي جالب
حسوس بان iska galay long time waqti hore niyo sakiinta Octoberska iyo markaad kurka ka jartay wixii ka dambeeyay halkaas ooga haraynaa waa ku mahadsan tahay kale aniga waa iga geesisan tahay waxyaalaha kale oo aan jecelnahay inaan ku weydiino waxaa ka mid ah waxa waayahan dambe social media la isla xiyaacayay adigoo ah boqorkii raabka inay jiraan dhalinyaro hadda soo baxday oo markaas adigu laftigaagu ay jaafajiriq idinka dhaxayso su'aalo ay isugu jawaabtaan heeso tabliiq la isku dirayo digada la isaga dhigayo la isku naaxinayo dhabalada la iscabsaynayo ma cidaad is haysataan baa jirta annagoon cidna magacaabaynin oo aad mararka qaarkood heesahan aad darsi ugu dhigaysid cabdixaafid su'aal fiican baa weydiisay may horta waxa weeye anigu waan arkay cabdixaafidow arrintan miidiyadan ku arkay aniga qaysa marka hore waxaan u maleynayay inay tahay prank laakiin dhowr ber markay socotay arrintii arkay oo dadka kale tan ayagana laga waalayo oo iska waalayaan oo caytamayaan waan arkay aniga jo iyo jaatoon oo ma dhihin aniga marka hore toba 2007 ku sheegay 2005 ilaa hadda karbashan wadi de karbashkayga aan iska watay qofna anu wada aan qof aan oo wula joodo oo qofka asaga aan rabo inaan holof oo run aan ka dhigo de waxaan u maleynaa qofka jidka isku mar la ku adkaan lahayd maxaa yeelay uma soo jeesanin ayagana wax aan la tartami karana ma aha dad aniga qofka hadda dhalinyarada hadda raab gareynayso dadka gaar ahaan caytamay oo ogta afkooda waxa ka baxayay oo taariikhda dhashayna ogta ani markaa fanka soo galay bay ahayd علشان هدي أن أجواب الدين نم يو ويلكيس مارتي هذه قد نم ويلكيس أجوابان أنا قلنا والله موتى مركا مجوابين وأنا أركاي هالكيس مش لكن ستيل وضدك وطل وحاسنا ميديا كلها الله سقطها أنا تاس ما يقف أنا واحد بوني أو مجد أنا أيجنا كمودين لكن هدي أنا قوة لها دي في كيس من والله سام أرنت سام ويكدو من ليد مدافع ولسنا استعمال فانت عملها arrintaas waxaan rabnaa inaan soo afjarno yani waxaad leedahay heesahan aad qaadaysid iyo tabliiqan iyo tigidhadan aad dadka u jaraysid cid gaar ah oo ay ku socotay oo dhalinyarada hadda raabka qaadaa ma jirto waxa weeye waa qayb ka mid ah barnaamijyadaadii karbaashkii heesii lagu yaqaanay waa gartay waxaan umaleeyaa dadku aad bay oga qanceen u fahmi doonaan su-aashaasna weydiinayay dabcan sida ayagu rabeen inay noo weydiiyaan nooma weydiinin kumaana weydiinin oo ahayd hebel miyaa isdagaalsantihiin anagu dad waaweyn baan ahay wax badan baan xiirinaynaa in la isdagaalana maba rabnaba sideedaba dagaal in lagu filan wayna soo martay haddii aanu kasii soconno arrimahaas waa kan dee marquuga kuu go-an yihiin oo six bagga aa leedaho geedkaasaa leegtahay anagu ritaayad baa noqonay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sportiska kubadda kooxaha kubadda ciyaara yaa taageerta kuwa badan baa taageera laakiin tiimka aad u taageera waa Arsenal gartay Arsenalka Ingiriiska ka jirta Ingiriiska Arsenal baan ka taageeraa Spain Real Madrid baan ka taageeraa France PSG baan taageeraa ilaahay ku roonay Talyaani waxaan taageeraa Inter Milan marka laakiin Arsenal baan aad u taageeraa Arsenal baan anigu yaraanteedii AC Milan iyo Juventus baan taageeri jirnay markaan barisamaadkii Juventus iyo AC Milan AC Milan Juventus ma dhinteen bismillah waxaan daawan jiray nin la yiraahdo Maldini oo ciyaara oo AC Milan u ciyaaray de waxa ka hadlaya Paolo Maldini واقي سيدكم وراء كان لي مرودو بسم الله الرحمن الرحيم بدر يا بكفر يستمر والله وراك ليرى القبله يا عبد الحافظ نيو كوبدا عياره waxay igu dambeysay 1997 ciyaarteeda ma jeceli daawashadeeda ma jeceli ritaayad baan ka noqday baashas niyo laakiin bariga hore macallin baa ku hanjir عبد الحافظ قصته دمبي بها نقطه سؤال خلد بها نقطه ما قصنا جرتها نيو أنا 45 baan jiraa oday baan ahay ما معقول ما عاد وش حكى فريق ده
believe me 44 baan jiraa okay dhinac kale aan u dhigo 95kii markaa adigu isgudaysay oo inanka yar aad ahayd anigu London baan joogay xaas baan lahaa markaa aan guursaday ما شاء الله والله ورا نبي آدم بكاويني marka ninkaan nin oday weeye da' weeye saamadiisu maahan كانوا ضغط لك أقول يا haniya waxa waaye waa weysada weeye gabar wanaagsanna waa qabaa maasha Allah ما شاء الله ما حاس كذا ما والله وكبر عشان حاس في عم بالله maasha Allah nihow arrin waxaa jirta muhiimad gaara bulshada Soomaaliyeed u leh fanku waa dhib badan yahay dadku aad bay uga cabtaan hawl badan gaara lagama helo laakiin mararka qaarkood kooxdii waa beri baad xasuusataa oo dadka hagi jirtay maalin dhoweyd adiga iyo saaxiibkay Maxamed Kaaleeri waxaad qaadeen heestii dalkan yaa iska leh oo guud ahaan gilgishay meel kasta guri walbana gashay ummadoo dhan ay si weyn u dhageysanayeen Soomaalinimo isku tasha dhiigga daadanaya inaan noqonay gob jabtay laakiin aanan gun ahayn oo aad arkaysid maanta haddii qarax u Muqdisho ka dhaco berrito subaxii haddana gurigii waa la dhisayaa 30 sano dad qarax ka dhacayay oo haddana maalinta ku xigta gurigii dhisaya Soomaali waa laga hayaa dad adkaysi badan karti badan weeye gob jabtay baa noqonay waxaan xasuustaa hotel ku yaala Muqdisho Aliid la yiraahdo nin kamida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ganacsada kamida khiyaara Abdullaahi la yiraahdo uu leeyahay maalintii uu dumay maalintii dadku berrito dhisay يعني that is how resilient dadkeena ay yihiin annagoo xaaladdeenu ay saas ku jirto ayaad waxaad soo qaadeen heestii dalkan yaa iskale oo na weydiisay su'aalo muqadas oo in la isweydiiyo badan ee la mudan dad fara badanna ay u tooseen ay u riyaaqeen heestaasoo rikoor bay jebisay heestaas maxay ku timid maxaad ku alifteen ujeedadaad kala haydeen maxayse ahayd عبد الحفيظ هيس دالكان يا اسكال waxay ku imaatay waxa wada fadhiyay aniga iyo fanaanka shanta Soomaaliyeed ee ku magac dheer Maxamed Kadeeri marka waxaan daawaynay TV aan daawaynay anagu TV daawaynayna waxa soo galay dad lacag loo qaybinayo shacab lacag loo qaybinayo oo xasuusto ma $1 ba ahayd waxba loo qaybinayo marka waxa la dhahayay numberkan lagu tuuri علشان dadka ayaga lacagta loo qaybinayay waxa lacagta loogu qaybinayay inay mudaharaad ka qayb galaan oo meesha ay imaadaan oo mudaharaadka hebel dooni meen ay dhahan marka anaga wada fadhino علشان sheekadiiba markii aan aragnay ayaan ani Maxamed Kadeeri sana u fadhino xasuustaa iska sheekaysanay TV iska daawaynay ayaa marka sana isku fiirinay Maxamed Kadeeri markaas waxaan dhahay marka qisadii wariyaha sheekadii waliba socotaa dadkina ماشي كاميرا دي وحي لوgu qabanaya markaas Maxamed Kadeeri waxaan dhahay dalkan yaa iskale Maxamed Kadeeri markaan dhahay ayaa Maxamed Kadeeri wuxuu dhahay warune dalkan yaa iskale marka ani Maxamed Kadeeri marka waxa weeye waa is very talented waa ninkaas ma sha Allah ilaahay u daayay fanaaniin badan la shaqeeyay laakiin daagay wax kala waay masagana sidoo kale waa sida tin waxa farxii fiska hada waxaan farxii fiska very talented waan ku dhahay xagga dumarka is very ninkana is waa this guy mucjiso waxyaalaha uu soo binayo fanaan soo binayo wali waa ugu yariya oo maartay R&B ku hayso wali maarkin wax kale markaas sheekada isku celin dalkan yaa iskale nin waa runa dalkan yaa iskale markaas dalkan yaa iskale dalkan yaa umar caalamka yaa iskale ardayga yaa baray dalka yaa markaas Maxamed Kadeeri markuu intii aan isku keenay ba hawshii muusika markii la bilaabay inaan maartay aan masaarno wixii dhan ilaa markii heestiid bay iska noqotay adduunka afartiisa dacal الله dalkan yaa iskale dalkan yaa umar caalamka yaa iskale ardayga yaa baray dalka yaa baday ninkiisi dayacay tukaale oo yo anigu dadka folkii sugaanta aad ku fiicanay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa heestaas waxaan u dhageystay si aan caadi ahayn ujeedaduna waxay ahayd waxay ka hadlaysay xaaladda aanu ku sugannahay maanta dalkeena hooyo uu ku sugan yahay waxaanu ahaan jirnay waxaanu noqon karno iyo inaanu muraayadda isku eegno oo aanan cid kala eedaynina annagu aanu dib isugu noqono marka
aniga waxaan kuu xaqiijin karaa adiga iyo maxamed kaadheeri abaalkiina ma gudi karno waa kuu mahad celinaynaa 100% in fact waxaa jira arrin anigoo ii gaara oo aan rabo adiga iyo maxamed kaadheeri in aad maaragtay iga aqbashaan bulshada Soomaaliyeed horteedana aad igaga aqbashaan ujeedaduna ay tahay heestaas iyo waxay ka hadlaysay way itaabatay ii dulqaado wax yara wax yar ii dulqaado saaxiibow halkan waxaa ku jira hadiyad qaali ah waxaan rabaa inaan soo saaro weligay cid hadiyad ma siinin anigu raalla waxba indhaha taagin halkaas waxaa ku sugan calanka Soomaaliya buluuga xidigtii ama qanad aragtay halkan waxaa kaga qoran Cabdixafiid Show iyo ilka casaqays magaca maxamed inaan ku qoran rabay magaciisa marka waxaan rabaa adiga iyo ninka laho kaadheeri inaad naga aqbashaan idinkoo mahadsan 100%. yes akura wallah awjeeda xidigtaas waxa weeye waa dhaxalkii awoogeen calanka Soomaaliya ee gadabbe calanka Soomaaliya waa cadaan iyo buluug weeye calanka Soomaaliya funaanada anoo qabo weligay maadan arkinin waxaan u qabo clue baa ku jiray amase sheekadan soo socota ayaan ogaa marka waxaan rabaa inaad iga gudoontid qof London ka soo tagaya idinku soo dhiibaya gudaha idinku keeni doona marka waa mahadsantahay saaxiib inta iyo in badan baad kaadheeri ayuu ka gudoonay marka dadka Soomaalida markay danta ummadda u istaagaan oo aan la kala qaybinin oo aan la isku dirinin oo dhiigeenu daadanin suugaantu markay macnaha leedahay waa markaas marka saa awgeed baan kula jeclaaday adiga iyo maxamed kaadheeri iyo taageerayaasha bulshada Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan idin taageera inaad iga guddoontaan insha Allah ta'ala ka guddoonay legendary aad baan ku salaameynaa kaadheeri thank you aan kuleenahay maxamed kaadheeri haddaan u sheegayaa si kadis baad haddaan ogaa inaad wax siiraysa maxamed kaadheeri soo wadi lahaa kale oo ogaa bilad baan loo hayaa laakiin ma ogeen si kadis waa gaaday aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa dadkii soo saaray dhammaan halkan ka salaamay adiga horta halkan thank you aan ku leeyahay Cabdixaafid horta mid baan ku sheegayaa adiga Cabdixaafid waxaad wariyaasha dheer tahay wadanimada dheer tahay hadda ku sheegaysiya waxaad tahay nin wadani oo dadkiisa jecel oo dalkiisana jecel waana ku fiirsaday mar walba Soomaaliya ayaa difaacda gaar ahaan badda Soomaaliya iyo waxyaalo badan oo waxa kugu arkay wadaninimo that's why ani aad ku taageera heesta dalkan yaa iska leh intaasoo wariye ayaa soo wacay intaasoo milyan bay gaadhay qofka kaliya bilad igu siiyaa tahay heesta dalkan yaa iska leh marka waa in adiga dadka dheer tahay weey waxaan ku leeyahay walaal jiraata hore u soco aniga maxaan ka dheerina aad iyo aad baan ku taageernaa we love you thank you so much walaalkay Cabdixaafid Allah ku cizeeyo walaal waxa weeye wanaagga waa la isku taageeraa garab baan la isku siiyaa dalkeena iyo dadkeena Soomaaliya anigu waxaan aad u necbahay inaan arko Soomaali isfuquuqaysa Soomaali iskala soocaysa Soomaaliland dheer iyo laangaab isku kala saartay qof kasta oo Soomaaliya sharaf iyo ixtiraam buu iga mudan yahay regardless of meesha aad ku nooshahay tuulada ku dhalatay walaalkay iyo walaashii baati haddaan inta ka soo tagno waxaad tiri waxaan u mahad celinayaa dad abaal igu leh waxaan jeclahay dadkaas inaad dul martid dabadeedna soo koobina jilayraad dhammaan in dadka aniga soo saaray qayb wax iga qaatay oo ugu horeeyay Cabdinaasir Cirra thank you so much walaal jira tahay Cabdinaasir Cirra waa Cabdinaasir Cirra waa walaal jira علشان waxaan soo kooban gareynaa Cabdinaasir Cirra because qishooyin badan ayay Cabdinaasir Cirra inuu markuu soo saaray qisooyin badan baa jira aniga asaga oo u taagnaa ama dagaal uu galay ama martay loo geystay oo aniga dartay Cabdinaasir Cirra walaal jira weey walaal jira tahay thank you so much baan ku leeyahay dhammaan dadka aniga fankay ka soo qaabtay sida Fuad Madina Black Fuad yiraahdo
asagana oo waagii 2010 soo saaray walaalkay asagana halkan ka salaamay legendary weligay ma iloobo mar walbo maskaxdu ku soo dhaca cabdisalaan caato asagana jalayaal iyo dhammaan aniga fankay qayb ka qaata asagana waan salaamay gaahir berber hadda sheeqo ma noqdaan lahay ilaahay sidaada camal annaga iga dhigay insha Allah bismillaah kariim waan kugu soo daba jiraa dhammaan AJ Evans Musa from Sweden boqor Musa asxaabta dhan halkan aan ka salaamayaa oo MMT Real Melbourne Australia halkan aan ka salaamay love you waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyada macaan mom hooyo I love you you are my everything adlaanta meesha ma joogeen hees hooyo la dhahana waan soo wadaa aad iyo aad baan ku salaameynaa aniga iyo Cabdi Xafid halkan baan ka salaameynaa hooyo I love you insha Allah waa gartay ugu dambeyntii waxaad tiri eray aad leedahay ninka odaga fankii uu ka baxay sheekh weyn buu noqday anna waa soo socdaa maxaad saaminaysaa waxaan inaan ku waarno marabna moogto waxaan iska waxaan wadanka Soomaaliya nabad noqoto fankan iyo hadda Soomaaliya wax walba uu hareebay ilaahay maartay nabad ha ka dhigo Soomaaliya cadow leedahay marka Soomaaliya marka nabad noqoto ee fankan ka baxaya Cabdi Xafid oo Soomaaliya cadow ay leedahay hadda ku sheegay dhageyso wallahi oo billahi oo tallahi magac ilaahay ku qaatay ma dhar ka xun baa jirto Soomaaliya cadowga ugu horeeya yana been lagu sheegay Soomaaliya cadowga ugu horeeya ee Soomaaliya haday kacdo oo nalkeeda dadweynaha laga arko ifkeeda oo ay hormarto wadanka ugu horeeya ee burburaya laakiin ka soo horjeeda cadowga waa imaaraadkan ku sheegay dhigeyso imaaraad Soomaaliya haday nabad noqoto oo hormarto dhaqaalaheeda Soomaaliya oo ayadu isku filnaato hadna xaalado dhashay imaaraadka dhulkay galaysa haddan ku sheegaya shalay imaaraad qofkay tuugsanayeen anigu ahaa marka waxaan ku leeyahay wallahi inaana been ku sheegeen kii ku farxay iyo kii ka maxay asaga jirtaa wax ma qariyo haddaad Soomaali dhalad tahay imaaraad meesha ku aragto gub haddan ku leeyahay imaaraadka waa cadowga dalka waa cadowga dadka Soomaaliya waxa meel la gaari laadahay waa nimanka wajiga soo dudubtay diinta isku qariya wax diino haystaan ma laha wallahi magac ilaahay kugu dhaartay research waxba yaa lagu dhihin Kenya saan iyo kuus waxaas yaan lagu dhihin yaa been lagu sheegay dadka lacagta dhiibaya qof walba soo diraya Soomaaliya ka soo horjeeda horumarkeeda wallahi waa maalinka imaaraadka ee burburtana Soomaaliya haddii noqon weyda meesha adduunka kali ee dalxiiska loo aada dhigay duraan ku dhaca Cabdi والله ما إله قدر مرك وحوي صوماليا وحلوه المر اللي عذاه وأنا ما كنا يجري إمارات كوي إمارات مالك أوبر برو أو إمارات أما أوفرها نجا قاعدة صوماليا هذا ناي مس أوبر برو هذا صوماليا عيارها الدون كان أولمبي جمال والبي وورلد كاب هذا صومالي وورلد كاب قاعد اللي يدرون كنا صومالي because إله صومالي وضد أقلب بدوي ونوبر برونا إنه أسر جودان إله أقلب وسيه هذا وضد والبا أنت كنا وحكفرنا بيزنس كوارت مال بس أنا هذا أنت جو أنا نيروبي أنجوج أنا نيروبي أنجوج وارت ماشي يا كلا وضد متقارن صومالي بكلا وضده لما ربع مركز أنا قبل حين دهان يهود وحدان على أقل يهود عمليين دهان صومالي دقيقة marka imaaraadka waxa weeye Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliya idinka ayaa wadanka bedeli karo nimanka imaaraadka la dhaho sida iskaga celin lahayn falkeeda gala oo wallahi magac ilaahan ku dhaatay laakiin imaaraad inta lacagta ku dhiibayso in la burburiyo Soomaaliya meel horumar ma gaareen maxaa yeelay hadii Soomaaliya ay dhisanto imaaraadka burburay haddan ku sheegaya been ma wallahi because imaaraadka iyo Soomaaliya waa artay shalay anagana tuugsan jireen laakiin walaal baan moodayna walaal jira maaha aad iyo aad baan salaameynaa warkacanimay wixii dhig loo kaca intaas waxaan jeclahay inaan waraysigan kusoo gabagabeeyo aanu la yeelanaynay fanaanka Soomaaliyeed boqorka shanta Soomaaliyeed boqorka raabka landheere magacyo badan wala taqaanaa masha Allah aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa si kaliya laaba mar labaad adiga iyo Maxamed Kaari waa mahadsantiin hadiyada naga aqbasheen waa ku mahadsantiin dhiirigelin bay naga tahay dadka Soomaaliyeed la dhiirigeliyo mid jooga magaalo kale iyo deegaan kale burit inaan dhiirigelino annagu aan isgacan qabano qofkeenii wanaag sameeyo la gacan qabto waa daruuri meeshuu rabaa ka soo jeedo qofku doonaha waa daruuri waxaan jeclahay inaan mahad celiyo walaalkay ilka case boqolkiiba boqol ku mahad celinaya guuleyso waxaan kaloo jeclahay inaan mahad celiyo wariye Cabdi Fataax Ali Shirwac ex wariye
macalinka weyn film maker isku bedelay filimkiisi aan hore in badan u daawaday cabdinaasir ciro ninka london iska leh yurub aad iyo aad u mahadsiya ninkaas waa nin waxaan kaloo jeclaa mahad celiya luqmaan oo kula jooga fahad cabdi oo kaa tegey luqmaan ila jooga fahad cabdina ila jooga fahad cabdina aad iyo aad ugu mahad celinaa walaalo jiro weeye inta maqana allah soo aruuriya ugu dambeyntii yaad jeclaan lahayd barnaamijkan inaan ku casuunaad is leedahay next week iyo wixii ka dambeeya aan soo qaban lahayaa nimcadare soo qaban waanu raadinaynaa waanu soo heli doonaa haddii ilaahay yidhahdo haddii naga ogolaato invitation baan u dirinaa guulayso farxiifiskii nimcadare soo qabo nimcadarena farxiifiskii soo qabo waa gartay waa ballan wey waan raadinaynaa haddii labada waa dhudhuumanaya soo qabo labadaa gabdhood walaalaheena fanaaniinta waanu raadinaynaa waa mahadsan tahay intii iyo gabagabadii meel kastoo dunida ka joogtaan waa ku mahadsantihiin daawashadiina guul baa idiin rajaynaynaa guulaysta dalkan yaa iskale dalkan yaa u maqan cawaanka yaa iskale